isla markaasna ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtiisii sharciga ahayd ee nebi maxamed uu kugu soo dhiibay aad ogaataa aad barataa aad ku camal fashaa markaasaa waxaad noqonaysaa addoon saalixaho suuban ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisana qaatay baad noqonaysaa laakiin haddii ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisaba aadan qaadanin kow aadan cilmiga baranin haddee fiiri cilmiga haddaadan aqoonin ma suurtoobayso camalkii ilaahay kuu diray inaad saxdi suurtagal ma aha waayo shaqada aad qabanaysid marka aad saxaysid shardi waxa u ah oo laga maarmaan u ah macnaha inaad taqaanid yani shaqada aad samaynaysid inaad aqoon u leedahay shardi tusaale ahaan engineer haddaad tahay wax oo yani waxaa kugu soo qaadanaya mithaal aad fahmi kartid engineer haddaad tahay tusaale ahaan yani guri baa rabtaa inaad qiyaastid guri dheer oo 12 biyana kasoo qaad inuu yahay aad rabtaa inaad qarashka ku baxahayo waxa dhan ay engineerisid qaabka loo dhisayo haddii aadan jaamacad uga soo bixin oo engineering aad soo baranin ma kuu suurtoobaysaa gurigaas inaad nashqadaysid inaad gurigaas aad qiyaastid hantida ku baxaysa qarash ku baxaysa no ma suurtoobayso waa in marka hore marka aad barataa jaamacad uga soo baxdaa waxaan aad yani marka hore si fiican aad usoo barataa waay markaasaad qiyaasi kartaa oo maskaxdaada intaad yani ku xisaabisid hal mar aad dhihi kartaa gurigaan intaasoo qarashaa ku baxahay sidoo kale baylood ma noqon kartid ama darawal ma noqon kartid adiga oonan soo baranin marka hore darawalnimada adoona soo baranin waa inaad marka hore iskuul u gashaa darawalnimo soo barataa gaariga sida loo wado lisan aad soo qaadataa markaas kadib baad gaariga wadi kartaa shuruucdiisi iyo wixiisa markaas soo baratid soo ma adoonan aqoon u lahayn camalkii oo gaari waridda ma samayn kartaa may adoonan aqoon u lahayn camalkii oo diyaarad wadidda ma samayn kartaa waa may adoonan soo baran aqoon u lahayn camalkii injineernimada ahaa oo in gurigan iyo wax ku baxay hal mar la sheego ma samayn kartaa waa maya maxay ku dhacday marka waxaas dee markii hore aadan soo baranin aqoon u lahayn idan waxaa la mid ah taasoo kale cibaadada aad samaynaysid waa shaqa aad qabanaysid salaada markaad tukanaysid tusaale ahaan salaada waxay leedahay qaab loo tukado si la sameeyo arkaan shuruud sharcigu uu dejiyey saas ha la sameeyo marka salaada la tukanayo waqtigaas la tukado intaasoo rugni bay leedahay intaasoo shardi baa laga rabaa intaasoo wax waa inaad iska ilaalisaa salaadii burinaya waxaasaa lagu leeyahay wixii waa inaad aqoon u leedahay marka sidoo kale marka lagu leeyahay zakadu intaasay ku waajibtaa xoolo noocaasay ka waajibtaa intaa haddaad haysa zaka kaga waajibi mayso dadka noocaasa zakada la siiyaa wixii marka haddaadan aqoon u lahayn ma sixi kartid idan waxaa saxnaantiisu waxay ku xiran tahay inaad adigu aad baratid wixii aqoon aad u leedahay marka saas daraaddeed ba waxa lagu leeyahay cilmiga in la barto waa waajib maqsuudkuna cilmiga ma aha ogow ee maqsuudku waa maxay waa camalkan ilaahay aad la hortagaysid laakiin camalkii baan waxaan ansaxaynin cilmi la-aan cilmigii waa inaad aqoon u leedahay camalkii markaad samaynaysid cilmigu marka waa wasiiladii maqsadka loo socdona waa maxay waa inaad ilaahay saad u caabudi lahayd aad baratid waa ilaahay saad u caabudi lahaydna cilmigii baad ku baranaysaa saas daraaddeed cilmigu waa waajib waxaa la yidhahdaa alwasiilatu lahaa xukmu lmaqaasid wasiilada la sii maraayo waxay leedahay maqsadka xukumkiisi tusaale ahaan mithaal kaloo fudud magaala rabta ina aadid tusaale ahaan idinka nairobi aad joogi jirteen nairobi waa taqaanaan mombasana waa taqaanaan mombasa rabtaa inaad aadid 7 ber iska soo joogtid iskuulku markuu fasaxa ku yahay mombasa markaa aadaysid waa inaad heshaa waddo aad ku safartaa maqsadka iyo meesha u socotid waa maxay waa mombasa soo maaha mombasa markaa u socotid marka hadday diyaarad noqoto iyo hadday tareen noqoto iyo hadday baabuur noqotoba waddo la maray leedahay soo maaha waddadii haddaadan helin ma kuu suurtoobaysaa inaad gaadhid mombasa may kuma suurtoobayso hawadii hadday xiran tahay diyaarad meel ay martaba aysan lahayn haddii kuu suurtoobi mayso inaad maqsadkii oo mombasa aad gaadhid haddii waddadii la xidha laamigii oo waxay ku dhacaan tusaale ahaan oo suurtogeli weyda maqsadkii iyo meesha u socotoy mombasa inaad gaadhid suurtagal ma noqonayso waayo maxaa kaa xiran meeshii aad mar lahayd oo wasiilada ahaa idan waxaa lagu leeyahay wasiiladu marba waxay leedahay xukumka yani maqsadku uu leeyahay bay wasiiladuna qaadanaysaa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib baa asna waajib buu noqonayaa idan cilmigu waa wasiiladii cibaadada loo marayay wa cibaadada wasiiladii loo marhayay weeyaan cilmigu waayahay
وقال النبي وحي صلى الله عليه نحر زيادي عليه حبيبك وسلم الله نبت قليه نبي وحي دهي من سلك قفكي قاده طريقا وضع طريقه يلتمس وكدل بهايو فيها طريقة دحديده علما وكدل بايو سلك الله إلهي وحي قادسية به منكاس طريقا وضع يقادسية طريقه موصلا جارسينها هي إلى الجنة جنة جارسينها هي وحي النبي كله عليه الصلاة والسلام مركله قفكي قاده وضع وضعاسنا وقاده علم طلبكي وضع وكدل بهايو علم بوقاضي إلهي سبحانه وتعالى أيا وحو قادسينها يا قفك أسقع أو أسهلها يا طريقي جنة جارسين لها محولة النبي يقول قفكي طريق قاضي يعني وضع قاضي وضع من مشى في طريق من سلك طريقا أي من مشى في طريق قفكي كسع وضع طريق قاضي أسقع كدل بهايا طريقاس علمي inuu cilmi ku gaaro gurigaada ka soo tagtay masaajidka soo aaday ma gurigiina wad ka tagtay oo xaafadii meeshii deganeed waad xiraysay wadan kale aad u xiraysay oo cilmi u raasatay dariiq baad maraysaa soo ma ah dariiqa aad qaaday sababtiisa ilaahay wuxuu kuugu sahlahayaa dariiqii ku gaarsiinahayay jannada ku gaarsiinahayay man salaka qofkii qaada dariiqan wado dariiqoo yaltamisu uu ku dalbahayo ee yadlubu uu ku dalbahayo fiiha dariiqada dhexdeeda علما وكدل بهايو سلك الله إلهي وحو قادسيا به منكاس طريقا وضع قادسيا طريقا موصلا جارسينها إلى الجنة روايين كقاركود سهل الله إلهي وحو أسهلا به منكاس طريقا وضع موصلا إلى الجنة روايين كقاركود نساسي قرآن يعني إلهي وحو قفك أسهلا وضع جارسينيسا جنة جارسينيسا معناه oo waxa looga jeedaa wada jannadii gaarsiinaysa ya ilaahi u sahlaya waxa looga jeedaa wafaqahu Allahu fi dunya li'amali ahli aljanna adduunka markuu joogo qofkaas cilmiga dalbaaya ilaahi wuxuu waafajinayaa wadadii uu u qaadi lahaa amalkii uu jannada ku gali lahaa yu ilaahi u sahlaya subhanahu wa ta'ala hadiiba aad cilmiga dalabtid ودر إلهي علمك أو ضلبتد إن إلهي كعابدد إلهي وحو كوافجنا هيا أدونك مركز جوجتد أسبابتي جنة أتكوجل لهي يا عملك جنة أتكوجل لهي بو إلهي كوافجنا هيا إلا أن أدوك أود مليه دو عملك اسمه وافجين كرتد جنة أسبابها لوجلا أسبابتي إلهي وجنة ولوجلا ويري قفك سميه وأهل الجنة اللي يري أسباب تاسا أدونك قفك جوغ إلهي وسهلها أنتو أدونك جوغ إذن محون نقرأ قفكاس قف أهل الجنة ونقرأها ما دام أولي يمد أسباب تي جنة الوغل لها وحوين النبي من سلك قفك قاد طريقة وضع طريقة يلتمس وكد البهية فيها طريقة نحن علما سلك الله إلهي وحو قاد سيابيه من كاس طريقة موصلا قارسينه إلى الجنة وبعد انت أسكدب وبعد وحا الله استعماله markaad war ka soo hadashid وحكو يدي وبعد فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب الحجة الإسلام بعد وحل لي ماذا وفصل وحل لها كلبحين وحلو كلبحين يا هذا الكيهر يا هذا الكردنبا لو كلبحين يا حمدي بسملدي أو بسنكيه يا حمدي يصلي النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النبي عليه الصلاة والسلام مقدمتي وكسو شيكينا يي نبي عليه الصلاة والسلام دردارن كيسي او اها علمي إلا طلب إني واجب تهي ترقيبكي انتاس كدب وحكو هدنا كو شيغ هيا رسالة بكو شيغ هيا وحكو ليه انتاس كدب رسالة داني ومسائل مختصرة oo la soo gaabiyay xagee laga soo gaabiyay kutubtii al-imam hujjatul islam al-ghazali kutubtiisi qayb kamid ah laga soo gaabiyay sida qaalibka wuxuu ku leeyahay waxa laga yaabaa imam al-ghazali kutubihiisa kutuba aan ahayn
in wax laga